بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan halkan ka salaamayaa walaalkay maxamed saaxiibkay oo runtii waqti badan iyo energy badan geliyay sidii uu uga qayb qaadan lahaa horumarinta ciyaaraha Somaliland. marka saaxiibkay waxaan leeyahay waad mahadsan tahay. waxaan doonayaa inaan halkan kelmad ka iraahdo ku saabsan ciyaarta derbiga ama ciyaarta klaasikada qofka sidii uu yaqaano ee dhex mari doonta labada kooxood ee Goodir Hargeysa iyo Gaashaan Hargeysa. runtii ciyaartaas ciyaar xiiso leh weeyaan. ciyaaraha Somaliland aad uga sheegane dadku ay aad ka hadal hayaan bay ka mid tahay markasta ilaa taariikh hore oo aan ka mid ahaa dadkii kubadda ciyaari jiray. anigu shakhsi ahaan waxaan ka mid ahaa dadkii markii horena taageeri jiray kooxaha, markii dambena nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ciyaartooygii ka soo ciyaaray kooxda Goodir ee Hargeysa oo muddo ka tirsanaa runtii. markaa kooxan saaxiibo badan iyo dad badan ku leeyahay weeyaan, walaalo badan aan isku baranay. waxaan doonayay inaan caddeeyo inaan horta marka hore taageero u ahay kooxda Goodir maadaama aan ka mid ahaa raggii kalarka kooxdaas ay ku ciyaartay difaaci jiray ee taariikhdooda qayb ka ahaa. marka labaad waxaan doonayay inaan faalo kooban ku daro ciyaartu maadaama ay Goodir tahay kooxda horyaalka gacanta ku haysa maanta ee ugu sareysa, Gaashaan ay doonayso inay xagga sare soo gaadho. ciyaartu runtii waxay ku culus tahay Gaashaan waxayna u fududahay Goodir. sababtan saawlay waxa weeye Gaashaan waxay ku khasbantay in ciyaarta badiso si ay saddexda dhibcood u hantido oo ay kaalmaha sare ugu soo dhawaato, halka Goodir ay u fududay maadaama ay gacanta ku hayso horyaalkii inay si degan oo miyir qabto ciyaarta u ciyaarto ayna ka faa'iideysato khaladaadka ay geli doonaan kooxda Gaashaan oo runtii waqtiga iyo ciyaartu ay ku kalifaysay inay raadiyaan guusha daqiiqada ugu horeysaba. marka waxaan ciyaartooyga Goodir u soo jeedin lahaa inay ka faa'iideystaan khaladaadka ay geli doonaan kooxda Gaashaan maadaama barasharku iyaga saaray, iyaguna ay dhinacooda la yimaadaan deganaan iyo maamulka ciyaarta, sabirkana ku daraan, dadna khaladka koobaad ay galaan kooxda Gaashaan ay ciqaab ugu bedelaan. aad baan maxamed iyo salaamiya bahda ciyaaraha, aad baan u salaamiya dhalinyarta ciyaaraha reer Somaliland. waxaan leeyahay insha Allah taala chance wanaagsan baa haystaan laga faa'iideysto. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Fawzi Maxamed Cabdi. waxaan ka mid ahaa ciyaartoygii hore ee naadiga Goodir waqtiyadii 1999 ilaa 2004. waxaan ka mid ahaa jiilkii ugu horeeyay ee lagu aasaasay kooxdan ciidanka booliska. waqtigaasi oo aan koobo badan aan kooxda la soo hoynay way ka mid ahaayeen horyaalkii dhibaatirsiga ahaa. ciyaarta khamiista dhex mari doonta kooxda Goodir iyo kooxda Gaashaan waa kulan fac weyn, waa kulan xiiso leh, waa kulan xamaasadiisa leh maadaama ay labada kooxood yihiin laba kooxood oo taariikh dheer leh, laba kooxood oo ciyaartooygii ugu fiicnaa waddanka ay soo mareen. waxaa looga baahan yahay haddaba ciyaartaasi kooxda Goodir inay ciyaar farsamo sareysa ay soo bandhigto, saddexda dhibcoodna ay gacanta ku dhigto maadaama ay horyaalka hogaaminayso, si ay horyaalka hogaamintiisa ay u sii xajisato. runtii tababare Jamaal iyo ciyaartooyga kooxdaba waan aad iyo aad baan uga hanweynahay. waxaanan filayaa ciyaar farsamadeedu aad u sareyso inay soo bandhigaan guusha iyo saddexda dhibcoodna ay bacraabaan. Assalaamu calaykum. sida la wada ogyahay Britole waxaa dhacaysa ciyaar aad u xiiso badan oo dhex mari doonta kooxdeedii hore ee Gaashaan iyo ciidanka booliska. sidaan ka warqabo ciyaartani waxay la mid tahay aan ugu oran karaa kooxda Gaashaan inay niyadda gashato inay la mid tahay final, because haddii aan laga badiyo liiga waa la ogyahay dhibcaha ay haystaan iyo inta laga horeeyo. ciyaartani waxay noqon kartaa ciyaartii ay kooxda Gaashaan kusoo noqon lahayd ee ay liiga ku tartami lahayd inay qaado. haddii laakiin laga badiyo waxaan hubaa inayna rajo fiican ku lahaaneyn inay soo baxdo ama ay kaalinta koobaad ama labaad gasho. anigoo ka hadlaya taariikhda aan u leeyahay ciidanka booliska intii aan la ciyaari jiray, niman hore way saxeen berdhawada waxay yidhahdeen ciyaarihii ugu horreeyay naga badiyeen, laakiin anigu intaan ciyaareen Gaashaan u ciyaareen waxaan hubaa in aanan kooxda booliska oo iga badisay aanan arag. waa koox adag, xamaasadeeda leh. waxaan u rajaynayaa ciidanka qaranka ee Gaashaan guul, nimankaa inay dhagaha ka dhirbaaxaan oo kooxda Gaashaan sumcaddii iyo karaamadee lahayd sida last 1 year la arkayay hoos bay u dhacday. kooxda nimo fiican baa iminka hogaaminaya, ciyaarihii ugu dambeeyay way soo kaceen. halkaa horumarka laga sii wado. annagoo ah qurba jooga
ciyaartooygii hore ee kooxda gaashaan deeq cabdilaahi cumar dhiidha oo lagu magacaabi jiray. waxaan leeyahay gaashaan iyo beri iyo guul iyo waxa weeyaan ciyaar fiican oo bilaa turxaan ah oo kubad fiican ah in lala ciyaaro kooxdaas. kooxdaas waa koox adag, waa koox hirdan badan naga dhexeeyay. waa waxa weeyaan maanta oo kale maan seexan jirin maalinta la ciyaarayo nimankaas. waxa weeyaan howlo badan, dhafar badan, haddana annagoo sidaas waanu kasoo dhalaali jirnay. kooxdani waxaan leeyahay shaqadii kooxda gaashaan loogu bartay way soo noqonaysaa. waanan insha allah waxaanu rajeynayaa kooxdaydii hore ee gaashaan waxaan salaamayaa dhammaan kooxdaydii hore goodir anigoo ah weeraryahan kamid weeraryahanadii soo maray kooxda ama sagaal kamid sagaaladii soo maray kooxda goodir. waxaan u rajeynayaa kooxda guul baan u rajeynayaa insha allah. waxaan rajeynayaa inaan ka badin doono kooxda gaashaan. weligeen buuna ka badin jirnay, maanta Britain waan ka badinaa insha allah. aad baan idin salaamayaa.